gudoomiyaha xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ahna murashaxa jagada madaxweyne xisbiga isagoo ku hadlaya magacyada kala duwan ee hay'adaha xisbiga kulmiye sida gudida fulinta golaha dhexe garabyada xisbiga ee dibadda iyo gudaha dalka taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo guud ahaan xubnaha xisbiga kulmiye waxa uu tacsi tiiraanyada u diray qoyskii qaraabadii eheladii iyo shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland geerida ku timi marxuum Cabdilaahi Xaaji Axmed oo kamid ah aqoon-yahanada gobolka Togdheer ka soo jeeda kaas oo ku geeriyooday magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer gudoomiyaha xisbul xaakimka kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ahna murashaxa jagada madaxweyne xisbiga waxa uu marxuum Cabdilaahi Xaaji Axmed ku sifeeyay nin karti badan isla markaana door laxaad ka soo qaatay iskii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu qayb weyn oo laxaad ka soo qaatay horumarinta dhinaca waxbarashada Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ahna murashaxa jagada madaxweyne xisbiga waxa uu marxuum Cabdilaahi Xaaji Axmed uu ku tilmaamay nin waxtar muuqda u geystay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo gudoomiyuhu marxuumka alle uga bariyay inuu naxariistii janno firdawso ka waraabiyo qoyskii qaraabadii eheladii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bahda waxbarashada ee uu ka tirsanaa ee uu ka baxayna uu samir iyo iimaan saadiqa ee baka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun